kan adigu tiri Cismaan ayaa badbaadinayay ayaga magacyadooda sama taqaanaa Cismaan ninkuu badbaadinay tolkaas balada halkan buuna joogaa ninka inanka ayadoo Cismaan intuu islahaa ninka badbaadi bay dhibaatada soo gaadhay mooyaan maysa soo gaadhi lahayn مسلسل كان وحو قار ويهي مقدشو كيبل تي في إن أبينا سينا أيوبا هاي waxaan ku weydiinaa sababta idin afduubtay ma idin sheegeen xaggooda intaad joogteen wax magac ah ma ka maqashay Dragos magac markaas ku dhawaaqayeen Dragos ayuu ahaa waxayna dhaheen Dragos markaan idin geeyno waad hadlaysaan Dragos weli magacaas ma maqlin mudan arti wuxuu idin yiri meeshaan aad ku noolaa kartaa intii aad doontaan waqtigaadii wacnaado cimri dheer iyo caafimaad ayaan Ilaahay idinkaga bariyay waxaad ii sheegtay ragga weerarka soo qaaday tiradooda iyo cadadkooda inta ay ahayd in ragga 8 ruux bay ahaayeen 8deeduna mid kama harin gabigooduba waan baabiyay bartaan ku baabiyay ayaan kaga soo tagay waan isaga soo dhaqaajiyay waqti munaasab ayaa timid kadibna wiilka ayaad ii badbaadisay waadna mahadsantahay run ahaantii abaalkaaga waxaan ku guda maaqaana laakiin maalmaha kamid sidaas oo kale waan kuu samayn doonaa insha Allah ma inaad ii mahad celiso looma baahna mahad celintayna kaaga Usmaan baa iska leh ninka iyo caruurtiisa haduusan inankaaga ka soo gaadhineen bartaabaa lagu aasi lahaa balse waxaan la yaabay inankaa daadiisa intay leegtay geesinimadu raggaa la hortegay inankani geesi weeye gobolaha kuu dayo raggan meesha ay ka yimaadeen wax aqoona ma u leedahay inay askar hayaan unbaan ku hayaa askar miyaa ay tirina haa askar way hayeen laakiin dharkii lagu garan lahaa oo askarta ma aysan xirnayn mudan shilka goobta uu ka dhacay waa buuraleyda Turna Hills ee Basmi halkaas ayaad aadaysaa waxaan ka rabaa dhaqdhaqaaqa meeshaas ka jira inaad ii soo hubiso raad kasta oo aad ku aragtana waad raacaysaa adigoon wax jawaab wadina iguma soo noqon kartaa adii ciidankaagaba amarkaaga ayaa jiro amarkaaga jiro
gaarigaas wax qaldan ayaad samaysay tagyasna gacanta ayaa ku dhigtay daraaga sida uu sheegay arrintan meesha ka dhacday